xildhibaanada golaha deegaanka degmada Caynabo maanta warbaahinta kula hadlayay magaalada Caynabo ayaa ka hadlay qaabka loo qaybiyay sanduuqa Somaliland Development Fund ee horumarinta Somaliland oo ay sheegeen in xukuumadda Somaliland dhawaan qaybisay dhanka kalena xildhibaanada golaha deegaanka ayaa ka hadlay gaarigii hay'adda qaxoontiga iyo barakacayaasha gobolka Saraare ee uu watay isuduwihii wasaaradda dibadejinta ee waqtigii xukuumadda madaxweyne Siilaanyo oo intii xilligaasi ka dambeysay ahaa wakiilka hay'adda barakacayaasha gobolka Saraare kaasoo sida xildhibaanada golaha deegaanka degmada Caynaba ay sheegeen in gudoomiyaha hay'adaasi Cabdikariin Xinif uu ku celiyay magaalada Hargeysa. waxaan halkan saaka kaga hadlayaa sanduuqii horumarinta dalka waa sanduuqa duul lama fan oo la qaybiyay oo aan nooga muuqatay cadaalad darro xoog leh baa nooga muuqatay halkaa sida aan warka ku hayno boqolkiiba 46 waxa la siiyay Hargeysa boqolkiiba 9 waxa la siiyay Gabiley boqolkiiba 14 waxa la siiyay Berbera boqolkiiba 5 waxa la siiyay Boorame boqolkii 74 waxa qaadatay oo la siiyay Galbeed iyadoo Galbeedna ay sii dulmiyay oo Boorame 5 la siiyay ayaa bari oo dhan waxa loo reebay 26 boqolkiiba 16 Burca 5 Ceergaaba iyo 5 Sanaaga waxaanu leenahay oo aanu halkan baaqan waafajinaynaa oo uga diraynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland Muuse Biixi Cabdi horta marka hore waxaan islahayn gobolka yagani wuxuu kaga jiri doonaa Somaliland halkii Gabiley kaga jirtay xukuumaddii Siilaanyo hadda waxa aanu ka galnay halkii ay kaga jirtay Hargeyga taasi ma cadaalad ba waxa weeye waa tii 9 jeeraad ku dhaaratay cadaaladaad ku dhaaratay arinta cabasho badan baa ka jirta kuwii ku doortay baanu nahay kuwii Muusawda hayay ku yeedhayay baanu nahay kuwii doorashadaada yu'aanayay inaad soo baxdo ayaanu nahay waxaanu ka doonaynaa arinta cadaalad baanu ubada u sheegnay inaad sameynayso arinta wax ka qabo oo yaanay dib u dhicin inay bogga ka raraato oo ay noqoto dawlad deedina iska leedahay inta kalena ay ka tahay boorgaad yaanay noqon gaariga gobolka Saraar loo keenay ee ka shaqeynaya xariyaha barakacayaasha ee isuduwihii hore wasaaradii gudoomiyaha loo sameeyay uu siiyay gobolku wuu tirsaday bulshadu way tirsatay uu magacaawna mid muuqda buu ahaa ka shaqeynaya barakacayaasha qaxoonti fara badan oo yaala gobolka oo dhan khaasatan degmooyinka Wadaamago 2 kaamba ah oo oogna 3 kaamba ah Caynabana labadii ugu waaweynaa gobolka oo dhan baa ah gaari baa loogu shaqayn jiray gaariga waxa ku shaqayn jiray siduwaha dibadejinta wasaaradii hore dibadejinta bixisay gaari gobolku gudoonsaday oo la wareegay buu ahaa gaari gobol buu ahaa waxaan leenahay taana waxaana la ku yiri gudoomiyihii cusbaa ee qaxoontiyada iyo barakacayaasha ayaa gaarigii xareeyay oo ku xareeyay Hargeysa maslax salaba sidde Home Cable TV Caynabo.